meeshaan aad degnay saaxiibow meeshaan waxaa la yiraahdaa Fargo almost magaalada waxay u jirtaa 18 kilomitir runtii waa deegaan bulshada hadda si fiican u soo degayso inta badan dadka reer miyiga ay soo dego deegaan ahaan ay ka dhigaan sidii ka dhigtaan sidii maxay la yiraahdaa isheeg ee u noqon lahayd xogaa meel yar oo wanaagsan oo magaalo xigeena marka Fargo la yiraahdaa waa meel runtii bulshada aad u soo degayso waxaana u moodaa dadka inay aad macnaha maxay la yiraahdaa ay ugu soo badanayaan almost magaalada sa ay sheeg waxay u jirtaa 18 kilomitir waa meel facility-ga ama waxyaabihii loogu talagalay deegaan ahaan bulshada ay u haystaan waxay leeyihiin matoor biyaha maxay la yiraahdaa u soo saaro oo bilaash biyahana bilaash u yahay maxaa yeelay ilaahay ceelku u bujiyay waa ceel aad u biyo badan marka waxay noqotay qof walba family walba kamid ah deegaanka inay helaan biyo nadiif ah oo bilaasha bilaa lacag sidoo kale waxay isticmaalaan koronto ahaan waxay isticmaalaan solar waxay leeyihiin waxa ka helay baraf biyo qabow oo nafta u roon waxaad ka helay korontadii caadiga ah oo leerka la daaranayo dugsiga quraanka iskuulaadkii xarunta caafimaadka hadda iskuulkooda wuxuu maraa ilaa fasalka 8aad xarun caafimaad oo waxa ku taalo ku filan hooyada uurka lagu dhaliyo qofka dhaawaca yar oo fudud soo gaar lagu dabiyo ilaa laga gaarsiinayo isbitaalka weyn runtii meesha waxay leedahay Fargo marka ku soo dhawaada انت سايق افرح لمية مع الوامس صراحة برف بيعنا هذا كسوي بسنة أنا جي صاحبكي من مرشانا بريس كعنّي مركا بريس اللي بقله عادي أنا سكاها marka saaxiibkii wuxuu yiri inuu meeshaan biyo ka qaadanayna biyaha waka mushada dhidid ka muuqdo Soomaa markii aan bilaabo biyaha cabideeda culays weyn dhunta ka dagay meeshaan waa ceelal dadka deegaanka hore u isticmaali jiray runtii meeshaan Fargo la yiraahdaa hadda almost waxaan joogaa 2 bilood sababta inta u joogo 2 bilood waxay tahay waxaan ka dhigaa macallin baan ka ahay badanaa marka ardayda ka timaada magaalada banaankeeda iyo kuwa inta degan deegaanka markii la isku geeyo waxa la yiraahdaa waxay noqdeen arday boqolaal arday oo u baahan inay helaan waxbarashadii Soomaaliga xisaabtii wixii oo dhan in la baro marka waxaan fursad u yeeshay inaan ka mid noqdo macallimiinta ardaydaas maxaa la yiraahdaa banaanka u soo saar si ay hamigooda waxbarasho ay hore ugu sii wadaan marka waxaan jeclaan lahaynaa mar aan iskuulka aan galno aan wax badan ka ogaano muuqaalkeena uu sii socon doonaa markaas uu kala yaacaya markaas tartanka ay maqlaan ay chance ku taaba وانا كو قرانا كو حاجه انا حاجه سالت ذاك لسه ما نارك ايه برت ميلها مره لو